بسم الله أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاليق وعند عبد الرزاق علي إن شاء الله ولادي الإمانتي سود هذا عاوة سنين وهبيندي أنسوق لندي عشرين امتحناها هاي كصاب سنة أكونتينكا قاران كمبيوترايز أكونتينكا كويك بوكسكا مرك إن شاء الله ولادي الإمانتي سود هذا عشر كان قدام بيوحوا بنرسكي أيتم لسه قاب لو كريت جري إن شاء الله عشر كانوا حد يقولوا ذاك دونا قاب لو كريت جري order barjaysinka ama qofka markuu dalbanayo oo qaabka uu dalbanayo waxaas dhan insha Allah iyo sida loo markii reportska laga fiirinayo videogana ku fahmi doontiin iyo clipkan biidin leh karim imaantii soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمانتي سود وولادة إن شاء الله وحابلي إنه صعداء عشرة نقصابتنا كمبيوترايز أكونتينكا gaar ahaan كويك بوكسكا marka إن شاء الله weli casharadana ku sii guda jirnaa daraad ama casharkii inoogu dambeeyay wuxuu ahaa inaan soo create garan ama aan soo abuurnay vendors kadib markaa vendors soo abuurnaa soo sameynay item list ama list item haddana waxaan rabaa insha Allah inaan sameyno marka inta soo sameynay purchase order ina aad sameyno dadku waxay iibsan lahaayeen orderooda inaan sameyno intaanan sameynin ka hor waxaan rabaa inaan idin tuso meesha laga arko hadda laba shay soo sameynay vendor iyo waxaa kaloo soo sameynay item list marka qaabka soo sameynay insha Allah aan rabaa inaan idin la wadaago statementkiisa marka insha Allah waxaan rabaa inaan idin la wadaago meelaha laga arko kale statementkiisa reportska hore waxaa jira marka soo sameeyno kale marka company soo create gareynay ina financial statement imaanay balance sheet ka ogaan jirnay waxyaabaha heesano oo dhammaan hadda marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago qaabkii wixii aan soo abuurnay iyo sida ku arki lahayn waxaan soo abuurnay vendors kana marka soo abuurnay waxaa ka arkeena inventory marka meesha soo gasho marka hore reportska ka imaan inventory aan dooranay kadib waxaa dooranay inventory evaluation summary ama detailska labadaba same way hadda midka summary ga imaan oo soo kooban waa kaasa waxyaabii aan soo abuurnay ma item listiga waxaa kamid ahaa baasto bariis iyo bur inaan soo create gareynay laakiin cash on hand aanan haysanin cost aanan haysanin asset value aanan haysanin total asset aanan haysanin kaliya waxaa soo sameynay salad price-keena qiimaha ku iibin lahayn waan xasuustii meesha soo sameynay qaabka soo sameynay retail value heesan waxaan wada zero inaga yihiin marka insha Allah waxaan rabaa inaan soo abuurno hadda price-ka qiimaha waxyaabahaas oo dhan hadda wixii lagu iibin lahaa kaliya aan abuuran orders-kan soo sameysanaynaa order-ka marka sameynayna marka ugu horeysa waxaa tagaynaa meesha ay ku qoran tahay purchase order marka click ku siino kadib waa weynaysanayna ama maximize ka dhiganaynaa kadib waxaa sameynaynaa meeshana oo qoran tahay item kadib meeshaas ku sameysanta falaartida hadda taalo oo yar oo sambuuska camal ah ku dhufanaa kadib markaa ku dhufsado waxyaabii aan soo create garay ama aan soo abuuray mid kamid ah soo doorana lacala haddii aan rabno soo doorna meeshaan u darsan kara inventory baartigeena baastada ku bilaabanayna baastada markaa ku bilaawdo meeshaan quantity ayaa imaanaya mar walba waxaa la siiyaa 100% kadib waxaa imaanaa waa aragteen kan kaliya meesha 100% ee kasoo sii quantity-ga rate-ka uu leeyahay maya meeshan quantity 100% ma ahan waxaa ka siinaa quantity-ga 595 waaye amount-ga kasoo isla aragnay kadib hadana waxaa sameynaa meeshaan imaanaa meeshaan markaa imaado maya quantity-ga waxaa laga rabaa sorry walaaladii 100% na ka dhigo 100 haddana waxaa dooranaa meeshaan labaad kadib haddana waxaa soo sameynaa inaad doorto bariiska kale kadib intaa quantity saasina 100 kadib markaas haddana waxaa imaanaa meeshaan ay ku qoran tahay bur ilaa 3 baa soo create garaystay aad inta rabto soo abuuran kartaa 100 waa kaasa hadda waxaa abuurnaa waxay tahay amount-geena abuurnay meeshaan waxaa waaye vendors-ka laba iyo qaf ay ahayd ana company farxi company waxaa dooranayna farxi company bishana mar walba inay ku saxsanaato 11 bishta koowaad oo 15 maanta baris 2019 ka vendor-ka farxi waaye company magaciisa Maryama company inta markaa soo sameysay kadib waxaa dhahay hadda price-keen rate-keen hore waa wada haysanay quantity-geena waa soo sameysanay 100% waa quantity-geena kadib waxaa dhahaynaa save and close markaa dhahno waynu sameysnayn kadib waxaa tagaynaa hadda waxaa ka arkaynaa reportskeena tagaynaa kadib markaa reportskeena tagno
meesha inventory qorantaa tagaynaa kadib waxaa tagaynaa ama detail ama summary labadaba same waaye maya summary-ga tagaynaa reports tagaynaa reports markaa tagno kadib inventory-ga tagaynaa kadib summary-ga ka dooran doonaa waa kaasaa hadda waxaa noo soo baxay costigeeni inaan ogaano 19 15 10 hadaa hore ma loo arkeenin waa wada aragteen 15 kaana la arkayay hadda waa kaas costigeena waa kaas soo sameynay 100% noo soo baxsan kadib way soo baxday hadda maxaa meeshan ku haysanaa quantity-geena inaan soo abuurno 19 15 10 kaana wax xasuustiin waa price-yadii ama cost price-ka qiimihi naga gali lahaa waaye ama average-ka cost of goods sold-geena kana waa kana 25 18 10 iyo 3 mar walba costigaaga inuu ka bato waa sales price-ka aad ku iibinaysid horna waa idinkugu soo sheegay maxaa yeelay haddan $19 ku soo gaday ama aad ugu soo qaatay meesha ka soo qaadanay baqaarkii oo kale dukaan oo kala tahay waa gadaysaa dukaanka waxaa kugu jira koronto waxaa kaloo laga yaabaa inaa internet xamaali waxyaabahaas oo dhan aad soo isticmaashay marka intaa soo wadiyo kala xamaaliga gaariga soo saaraysay communication-ka sameynaysiin waxaasoo dhan marka waxaa la rabaa inaad ka fikirtid oo keliya aadan ka fikirin lacagta cross profit-kaaga waa inaad ka fikirtaa net profit-kaaga iyo wixii kaaga soo haray dhammaan wixii galaayo oo kii saas darteed 25 ka dhigay 18 13 waa ujeediin marka waxaa rajeynayaa qaybtan inaad si fiican ugu faa'iidaysateen waxaan idinku faa'iideynaa qaabka loo abuuro ama loo create gareeyo hadda aan soo baranay purchasing order-ka purchasing order-kana hadda waa kaas waa soo dalbanay qaabka loo sameeyo waa isla soo aragnay haddii aad u baahatid meesha ka baaraysid ama aad ka raadinaysid waa isla soo aragnay marka insha Allah biidnillahi alkariim cashirkeena maanta intaan oo ahaa waxaan rajeynayaa in intaan in ka badan aad kala faa'iidaysano ilaahi subxaanahu wa ta'aala qof walba oo barnaa hala garab galo dhammaantiin walaaladii soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh